اوكي انا واحد هاي ادونك لو همبرجر جرتا هاي labada hamburger oo jirta midna waa la cunaa sax midna waa la daawadaa sax dhalinyarana ahay sax waxaan jeclahay hamburgerka la daawado soo waxa dhahay magaalada Hamburg ma laga helaa hamburgerka la daawado oo badan yihiin anigoo hadalkayga markaas u dhigaya gabdhihii quruxda badnaa magaalada ma joogaan sababtoo waxaa magaalada Hamburg kula kulanay gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida Axmed Soomaali oo ahaa wariye ka soo shaqeeyay warbaahinta Soomaalida wuxuuna si farxad leh ku jirto inuu soo dhaweeyay magaalada Hamburg waxay sidoo kale liil isdhaafsadeen waraysi xasaasi ah iyo kaftan gudoomiyaha sidoo kale wuxuu fanaanka ka codsaday inuu bandhig faneed caalami ah ku sameeyo magaalada Hamburg maadaama ay ku nool yihiin Soomaali aad u fara badan waana kana gudoomiyaha iyo liil ayagoo xog wareysanaya naga soo boqday magaalada Berlin ee caasimadda dalka Jarmalka maanta waxaan ku suganahay caasimadda labaad magaalada Hamburg waxaan arkaynay oo adoo falanqeynayo intaan kelmadaada aad u gudbinay magacan Hamburg oo hamburger iyo wax isku qalqaldaaya maxaa ka waday wala isgilo okay ani waxa dhahay adduunka laba hamburger jirta hay labada hamburger oo jirta midna waa la cunaa sax midna waa la daawadaa sax dhalinyarana ahay sax waxaan jeclahay hamburgerka la daawado soo waxa dhahay magaalada Hamburg ma laga helaa hamburgerka la daawado oo badan yihiin anigoo hadalkayga markaas u dhigaya gabdhihii quruxda badnaa magaalada ma joogaan sababtoo madhahay gabar inaan arko ma rabi sababtoo raga ahay raga gabar u baahan yahay markaas soo sidaas darteeda u dhahay laakiin se wax oo adiga foodo iyo dhalinyarana waa iska fahmeena waxa adiga xumaan iyo waxaas maana ka wadil waxa ka wadil hadna sometimes marka dadka nabaddoonyaasha kalbaaga ay taagan hadallada ka hadlaysid waa laga fiirsadaa nabaddoonyaasha warku ku leeyahay iska gaas soo haya inaad gelin u rabo arif waa nabaddoona geeskayga jooga marka ina hadalka waxa waaye sida uu qurux badan gudoomiyaha darafkayga jooga marka hadalka sida uu qurux badan ina u dhaho waaye marka hadalka micnaha aan kala hay waxa waaye gabdhaha Soomaaliyeed ee qurux badan magaalada ma joogaan runta ku sheegna hamburger badan waa arkay صح ما شاء الله كيف معنا لكن كيف معنا ماكدونالدز soo dhawow intaas kaftanay ahayd magaalada Hamburg waxa ku nool Soomaali fara badan sida gudoomiyaha ururka dhalinyarada walaalkan Amar oo idin sheegayba magaalada waxa degan Soomaali fara badan Soomaalidaas oo badankeeda dad cusub wala wada cusub laakiin noloshu waa bilow halkan jirnaa waxaan diyaarinaa waxyaabo cusub la diyaariyo iskuulada waxbarashada ee luqadda shaqooyin yar yar aan hadda abuurnay oo halkan iyagana waxaan ay business oo ureen ganacsiyan bilownay bulshada isku xiran baa soo socota marka magaalada waa inuu insha Allah waxay meel meesha ka buuxoon madal halka ka buuxoon ay ku casuumo barnaamijyo waaweyn oo maaragtay dhanka fanka iyo dhaqanka ah aad noo qabataan oo maaragtay bulshada si loo horumariyo waayo dad dhaqankooda wax weyn markaas insha Allah thank you horta runta hadii la isku sheego kulligeena macna u imaan wadamada qurbaha baasha waxa u imaanay qof walba qofna family ka soo tagay qofna dana gooniya keeneen qofna horumar u tiigsanayay soo qof walba oo meeshan imaaday wuxuu u imaaday wuxuu lahay targetkaagana haddii aad nolosha ka dhigto baasha inaad fadhiisatid ama balwad aad ama hawadan oo beenta ay ku qaado targetkaaga ma ka meel dhali kartid adduunku waxa fiican in la barto sida loo noolaado dadkana loola noolaado wadankan horta dadka iskale dadka dhistay abaala u heedaa sababtoo dhulkooda ayay nagu soo leeyihiin saasay tahayna annagana waxaa laga rabaa targetkeena inaan ka miro dhalno soo dhalinyarta Soomaaliyeed sida haddeertan gudoomiyaha uu ka dhawaajiyey shaqooyin waxbarasho business wax kasta leedahay abuuray soo adinkana waxaa isku dayday fursadaas qaaliga ah oo xilligan aad haysatiin inaad ka faa'iidaysatiin sababtoo yaa og berito inay jiri doonto fursadaas ma ogin berito waxaa noqonaysaa inta xoogga leedahay faa'iidayso
xoogga lagu sheegayo mise nin saaxiibkiisa saacada garabkayga taagan oo ka dhawaajiyey wuxuu dhaha xoogga lagu sheegayo muruqa ma ahan xabadko la dhisayo ma ahan xoogga lagu sheegayo waa caqliga iyo khibraddana waxa awood loogu yeeli karaa waxbarashada iyo qaabka u fikiraysa business soo ka faa'iidaysta fursaddan ay haysatiin annagana waxa waaye dhankeena ka soo gelina oo ka faa'iidaysanayna insha allahu tacaala ana dhanka hadda u soo jeesto xafladaha sida oo walaalkii ka dhawaajiyey gudoomiyaha xafladaha sida dhalinyarta xalay aan ku wada hadalnay ama uga ballan qaadnay haddii corona uu gees maro waa corona markuu gees naga maro insha allahu tacaala ilaahay horta naga qaado xafladda ugu horeeya aan qabanayno insha allahu tacaala hamburga ku qabanayna hadduu ilaahay raalli ka noqdo maasha allah haddana waxa waa hadda ka hadli karno corona sababta caafimaadkiina ma muhiim ah dad iskuma keeni karno waa ognahay haddaan wacno waa la isku imaanaa laakiin dad hadda iskuma keeni karno marka corona gees noo maro insha allahu tacaala waa shidanaynaa aad u mahadsan tahay waan soo dhawaynaynaa mar labaad mar saddexaad gubaabadaadana waxaan jeclahay dhalinyarada Soomaaliyeed inay wax ku qaataan waayo waxa ujeedada aan wadankeena ugu soo tagnay oo nafteena halis aan soo gelinay aan qurbo u nimid waxa weeye inaan mustaqbal qurxoon aan dhisano الفنان iyo promoter Amore waa mahadsantiin insha Allah ku soo dhawaada Hamburg isxogoreysi dheer kadib fanaanka iyo gudoomiyaha wuxuu inoo kaxeeyay magaalada Hamburg si aan u soo daawasho tagno maadaama ay tahay caasimadii labaad ee dalka Jarmalka magaalada Hamburgna waa magaalo run ahaantii aad iyo aad u qurux badan gudoomiyaha ayaa asxaabtii la socotay ugu horeeyay walaalkii Amar iyo Maxamed DJ iyo Salman Fay oo ah kaameramanki kamarada inoo duubiyay waxaan sidoo kale u mahad celinaynaa asxaabtii la socotay gudoomiyaha kale aan magacyadooda halkaan ku soo koobi karin gudoomiyaha sidoo kale wuxuu magaalada Hamburg inaga soo tusay meelo badan oo loo dalxiis tago run ahaantii waxaa sidoo kale kamid ah meelo ay kaliya degiin dad qani ah waxaa sidoo kale kamid ah meelo qadiimi ah magaalada caan ay ku tahay gudoomiyuhu iyo asxaabtii la socotay waxay sidoo kale ina saareen doontaas oo nagu soo wareejinaysa magaalada Hamburg waxaan sidoo kale wada galnay sawirro xasuus ah annaga iyo gudoomiyaha iyo asxaabtii la socotay halkan ayaan sidoo kale idinku soo gudbin doonaa sawirradaasi waxaan halkaan ugu mahad celinayaa gudoomiyihii iyo asxaabtii la socotay mahad celin ballaaran halkaan aan ku soo koobi karin magaalada Hamburg waa magaalo aan u xusi doono aniga iyo fanaanka sidoo kale LB wuxuuna ballan qaaday in magaalada Hamburg ay noqon doonto magaalada ugu horeysa markii laga baxo lockdown-ka in show aan ku qaban doono insha Allah mahadsanidin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصل سؤالي وحقيقي مر والبا مركا مقالة تجيس you have to in على كلامته ضدك معرفتي وهم معقول السن ياشا وعوي أحمد الصومالي وقدمي جاليد الصومالي ده همبروك هرد قدمي دورشة على الدورشة وحوي مكسب حرت وما سنتها هي دورشة دي ولي نوم قبضومين وين قبضتي سواء الحرير كورونا أوي مركا إن شاء الله خرجينا إن نوقف صنطه بعد كورونا على ده مركا قبض حسابته على أكثر ما هذا بوجرا إن شاء الله مركا واحد الله يحيي داود أمورة أديو الفنان ليلبلي سودو هذا هم سودو هذا سودو وين إن كل فرن لا فرن قام فرن ما قرأت سودو هذا لنا مقال الشونة وأكثر وحن رجينا هنا نوصل الله لندن إن شاء الله. كاميرمان نوصل سلمان فاي. سلمان فاي. كم سلمان فاي؟ أصحاب سلامتك اللي وين من الواجبتين وأنا وسلمان فاي. لكن رجوا متغيرين. My boy على الجوا. يا ولافي ما رتبت هامبورغ دتي وحوايا. طبعا أصلا أجمع هامبورغ لك هامبورغ مقاليدنا ما فهمت برا. هامبورغ حالا باور حتى هم بينهم مرة سكري. باور مو بين برا كوده بس كده وبهانتا. إسمع ماله. تريك لا تجلس تريك واحد. واو. meeshan bawra gadana brada baaki mihilisi garaxa waa badana brada jaama jiro yuan dhacda ku soo dhacay subax yuan bawr laga ma qaatay أنا جوك سوالي. brada xiliiska دوغ يا وبلش أصلا سوى قرنا بقى يسوق توتا مركا هامبروك another city كل يوم ما لقوا صلاة لا بقرا سيف عن مرة نسودوية لا ما لقوا مسوق بكرة لا هاي هل لكن ويدينا سؤال دني هاي مقالة برلين أمورو هاي نيو مقالة عاصمة واسكتها معنا كان اسمها هاي الله جوهر يا مستر اليوم يوم ملا الصومالي ماشي تيار مركز اسمه إبركع
laakiin meelaha kale waxaa jirta meelo fara badan oo magaalada markaad tagto aadan ku arkayn dadka madowga ah si fiican for example Greek hadda soo mar Soomaali istaag oo kale waa arsamaan sax aad iyo marka Soomaalidu waxay tagtaa Soomaalida joogto tiraahan intee la والله مو هذه 400 أو 500 لكن مقالة ما راح تقول مستوى صح ما رحت وحدة قيم مقالة بناكل بناكل سفيعة كان مقالة هامبورغ وعاصمة الوطن الجرمانية واحد دقن صومالي قياسي 3500 ها هامبورغ اريا ده ما فهمت كرايسي بدن هامبورغ هوسي ما جرا gobolka laakiin ka tirsan iyada nafteeda wax ku nool Soomaali kala fara badan marka taas ka dhigaysa tirada inay badato caadiyan marka insha Allah waa magaalada marka waxa way magaaladan waa la soo laaban karaa markaas dadka waxa way dad badan oo maartay degan ba aad iyo dad badan degan waxa u baahan yihiin laakiin in la hago baahan dadku wada cusub yihiin waxaan hadda bilowday dhalinyarada ay ku dhiiradeen horumar fara badan inta badan dhalinyarada waxay sameynayaan osbildino waxay sameynayaan maaragtay practice wax yiraahdo waxa ayniga aan gabtuba ayna maartay waxa way shaf aygu isku xo ما شاء الله دنيا سكسن هذه سيلف امبلويمنت سيلف يعني هذه سيلف اشتاند سيلف اشتاند marka horumar fara badan ka socda ganacsiga ama bilowday anaga u dhana hadda waxa wadnaa barnaamij aan rabno masaajid aan ku furno ma sha Allah waa dadaalayna insha Allah hadda waxaan caruur fara badan oo ilaa iyo 60 meey gaarayo aan wax u dhignaa meesha aan wax u dhignaa waa meel Turkiga ay leedahay Turkiga leh salbistaan inaan noqono rabnaa anaga leenahay marka horumar insha Allah ma sha Allah Allah nala garab galo badankeena waa cusubna saa la socoto marka anaga waxaan nahay model ilmaheena maartay maartay nolol fiican waa inay jid u sii sameeyaan aad iyo aad wixii maanta aan qabanno bay berito la dhalinyaradan hiigsanayaan caruurta insha Allah wadamada kale soo daniifiyanka waxay nooga hormareen yani ma taqaana waxa way dadkoodii waa jiilka hadda labaad hadda waxa way hadda dad tagto dad badan maartay kaga sii horeeyay moogta صح si fiican aad baan idin salaamay akhiyaarta ay bro magaalada waxa leeyahay 3500 oo qof oo Soomaali ah soo gudbiyay shay qabow aan ugu dishay 3,000 uma socotay 3,000 qabow ay ugu socotay Berlin intii qabow Berlin inta qabowni waa ka dawan sheegay maxaa Berlin inta qabow Berlin sababtu taqaana kale in Berlin sababtu taqaana Berlin waa magaalo qadiimi ah okay kul badan ay keedsatay kulkii soo tufaysa laakiin magaalada waa magaalo fresh ah dhul banaana baa ismaal laga dhisaa la boobsiinaya maya Berlin ana ku sheegayo oo Afghanistan ku soo dilay Syria ku soo dilay ku soo dilay abo dilayaasha martamiya Berlin artay wuxuu jirtaa 4 daqiiqo waxay soo xasuusiyay sheeko maal jaraa'id kan oo la yiraahdo Hoytag ha baa wuxuu soo qoray warbixin dhahaysa maxaan u weynay barafka هاي محقويني والله قف علونا ها برفق وحن ويني دد وح سود لي باودن كان يمد قال هذا يا برنامج قال فهد لي بريل هي عن بلقى صاحب